runtii maantay farxad gaar ah ayay ii tahay inaan imaado degmada Balcad iyadoo ku soo aaday munaasabadii sanad guuradii koowaad ee la doortay madaxweyne Cali Guudlaawe. saad la socotaan degmadan waxaan u malaynayaa xiriir gooni ayaa naga dhaxeeya degmadan. markii ugu horeysay aan imid oo aan fasax u imid waxay ahayd daada aan qariye 1976 xilligaas 1976 wixii ka dambeeyay waxaan imaan jiray sanad kasto xilliga iskuulka la xiro waxaana halkan deganaa dad ehelkayga ah oo ka shaqayn jiray warshadan dharka ee Somali Tax. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddigii badbaadiyay iyo dhammaan shacabka degmada Balcad sida ay codsadeen madaxda oo ugu horeeyay madaxweynaha amniga wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada oo aan si gaar ah gudoomiyaha degmada Qaasin aan ugu mahad celinayo sida walaaltinimada leh sida ehelnimada leh uu maanta noogu soo dhaweeyay degmada Balcad. waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliiska Xasan Xijaar Sareeyagaas in uu dayactir ku sameeyo saldhigga booliiska ciidamada lagu soo kordhiyo ee degmada Balcad. wixii qarash ahna diyaar ayaan u ahay sabtiga wixii ka dambeeyo. insha Allah waxaan kaloo rabaa inaan idin ballan qaado sida aan ku ballanay madaxweyne Cali Guudlaawe iyo wasiirkiisa in markaan ku noqono magaalada Muqdisho aan la fadhiisano wasiirka maaliyadda oo mashaariicdii fatahaadaha aan ka wada hadalno lacagna ay u taalo laakiin aan dardar gelin hadduu alle subxaanahu wa tacaala idin. mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin sida diiran qiimaha leh oo ay ii soo dhaweyseen. إلهنا أجر هذه كسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.